دقريتك كسو بحدي قلنكي دنبي مانتا حفيز كمدحوينها دولة الصومالية حسن شيخ محمود ايا لغو مقعابي رئيس الوزراء عصوب الصومالية وعنا حلكاسي لو مقعابي دكتور عبدولي الشيخ أحمد محمد oo kamid ahaa tiro musharaxiin oo doonayay inay qabtaan jagadaasi Kamaal Daahir oo ah agaasimaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa akhriyay dikreetadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya markuu arkay qodobka 9aad farqada afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dhismaha hay'adaha dawladda gaar ahaan buuxinta jagada ra'iisul wasaaraha kadib markii ra'iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisii ay waayeen codka kalsoonida golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay waayo-aragnimada iyo aqoonta uu leeyahay mudanaha loo magacaabayo xilka ra'iisul wasaaraha wuxuu xiliyay qodobka koowaad laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha December 2013 waxaa Cabdulwali Sheekh Axmed Maxamed loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya رئيس الوزراء عصوب maanta la magacaabay Dr. Cabdulwali Sheekh Axmed Maxamed oo ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu sheegay hadii uu baarlamaanku codka kalsoonida siiyo inuu soo magacaabi doono golo wasiiro oo tayo leh kuwaasi oo wax ka qaban doono arrimaha ammaanka dhaqaalaha iyo kuwa kale waxaan gaarsiin doonaa oo ku xasantan doontaan nabadeynta iyo xasilinta dalka dhamaystirka dhismaha يكشفين هيئة الدولة يباهين تماماً قد يترست دستور كذي أفضل على برمرين تماماً كقبلنا الجريمة النظام كفدرال كذي يقولون دولة شؤون حوالنا كمان في الرئيس كذي كقبلنا على بنك برمرين تكاوياش سيسا goobta ay munaasabadu ka soconaysay ayaa laga dareemayay buuq iyo sawaxan la xiriira farxadda magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha cusub oo ku xushay karti iyo aqoon u leeyahay jagada loo magacaabay waraysi badan iyo la tashiyo badan oo aan dadka Soomaaliyeed wixii kala duwan aan la soo yeelanay markii dambe waxay ku soo gabagabowday galabta inaan u magacaabo Dr. Cabdulwali Sheekh Axmed inuu noqdo Prime Minister ka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan rajaynayaa in Ilaahay talaq go'aankaas aan gaaray oo ka dhigo mid kii Soomaaliya u wanaagsanaa niyad samaan iyo dadaal iyo la tashi ra'yiga dadweynaha iyo mas'uuliyiinta iyo madaxda dalka ayuu ku yimiday waxaan ahayn wanaagga Soomaaliya oo aan go'aankaas ku gaaray ma jirto haddaba waa shakhsi caynkee ah ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta la magacaabay shaqooyinka runtii waxaa ka mid ahaa waagii hore ee dawladda Soomaaliya ee mashruuc loo oran mashruuca dhoofinta xoolaha iyo geela uu ka mid ahaa ayuu madax ka ahaa dagaaladii markay dhaceen kadib dadkii diaspora oo qaxay ka mid ahaa muddadii ilaa 2009kii aan ogahay wuxuu u shaqeynay COMESA oo yiraahdo wadamo badan oo Afrikaan oo ilaa waqooyiga ilaa Central ilaa koonfurta ay ku midaysan yihiin haddana wuxuu u shaqeynayay intuu sanjigadan soo doonan bangiga islaamka ee saldhig uu ku leeyahay